waxaan mahadnaq ballaaran oo aanan lahayn in eedayaha ku cabiro u soo jeedinaya taageerayaasha iyo madaxda xisbiga wadani iyo qurbo-jooggiisaba walaalayaal waxaan mar labaad idinka mahadnaqayaa sidii xamaasadda lahayd ee qorshaysnayd aynu u galay ololihii doorashada madaxtooyada oo aad ka soo hoyseen guulo la taaban karo. walaalayaal jamhuuriyadda somaliland waxay soo martay oo inoo qabsoomay 6 doorasho kuwaasay ugu horreysay doorashadii golaha deegaanka ee 2002 oo aan dhammaantood ka qayb galay. doorashada ugu horreysay 2002 waxaa ka mid ahaa howlwadeenadii ku guuleystay inay soo saaraan xisbiga qaran ee weli waxaa kaloo inoo qabsoomay 2 doorasho madaxweyne oo inoo kala qabsoomay 2003 iyo 2010. waxaynu qabanay doorashadii golaha wakiilada 2005 oo aan ka ahaa musharax kana noqday guddoomiyaha golaha wakiilada oo aan xilkaana hayay muddo 12 sano. 2011 aniga iyo saaxiibo badan oo rag iyo dumar bali waxaan aasaasnay xisbiga wadani oo ah maanta xisbiga qaran. waan is leeyahay waa ka ugu baaxadda weyn axsaabta jamhuuriyadda somaliland waxaana maraka ah intiina halka fadhida oo kasoo kala jeeda dhammaan gobollada jamhuuriyadda somaliland lawyacdo taleex iyo badhaninta baxs. walaalayaal 13 November 2017 waxaynu u dareeray doorashadii 6aad ee ka dhacday jamhuuriyadda somaliland oo ahayd doorashadii madaxtooyada xisbiga wadani. anoo u mahadnaqaya dhammaan xubnihiisa waxay ii doorteen inaan noqdo musharax madaxweyne. saaxiibkii maxaa dhacayna musharax madaxweyne raadiye, balse waxaa dhacday doorashadan isdabamarin, musuqmaasuq iyo ku shubasho aan xad lahayn oo ay ku gadaanay dhammaan doorashadii loo qabsatay sidii aan shalay soo faahfaahiyey. waxaan taageerayaasha xisbiga wadani lagula kacay tacaddi iyo xadgudubyo aada u badan oo aanu soo bandhignay. waxaa ilaa hadda xabsiga ku jira dadkii doorashada loo xidhay. waxaa dhakhtarka jiifa dhaawacii xabaduhu ku dhaawaceen magaalooyinka Burco iyo Hargeysa. waxaynu ku weynay nafa badan oo maanta aynu weynay, iyagana ilaahay ha naxariisto. waxaan aada uga xumahay ku-tumashada sharciga ee aan xadka lahayn, adeegsiga hantiga ummadda ee aan loo aaba yeelin, caburinta iyo agajuuleynta lagu hayo muwaadiniinta iyadoo loo adeegsanayo xoogga ciidamada kala duwan ee qaranka somaliland ee loogu talagalay inay dadka cadowga ka difaacaan, sugaana amniga shacbiga reer somaliland. waxaan ii sheegaya inaan ciidamo dalkan ku xukumi karin caburin, agajugleyn iyo cudur ciidan midnaba. waxaan soo jeedinayaa in shacbiga laga daayo xaalad abuurka iyo kicinta iyadoo meelo aan loo baahnayn
magaalooyin iyo xaafado gaar ah la geeyey ciidamo aada u tiro badan oo waxyeeli kara ammaanka qaranka. waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda inay sii dayso madaxda iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee ilaa imika u xirxiran. waxaan kaloo soo jeedinayaa inay magdhow siiso dadkii ciidamadu dhaawaceen iyo kuwii dhintay. waxaan ka xunahay musuqmaasuqa, sicir bararka, dhaqaalaha bulshada oo halkii ugu hooseeyey maraya maanta, iyada oo ilaa hadda ay xiran yihiin dhoofkii xoolaha nool oo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha dalka. xisbiga wadani isagoo ogsoon inaanay dalka ka dhicin doorasho xor oo xalaali loona adeegsaday xooggii iyo xoolihii qaranka si xisbiga kulmiye talada ula wareego gar iyo gardarrada. xisbiga wadani isagoo qiimeynaya muhiimadda nabadgelyada, degenaanshaha iyo horumarka dadka reer somalilan tacab dheer u soo mareen, isla markaana tixgelinaya duruufaha kala duwan ee muwaadiniinta somalilan. xisbiga wadani isagoo maanka ku haya in mar uu la gaari doono doorasho xalaal ah iyo dalkoo barwaaqo ah oo xaqiijiyey himilada ummadani lahayd ee ahayd in somalilan madax bannaan oo dunida aqoonsan tahay kana mida beesha caalamka. marka la tashaday xisbiga waxaan qaatay maanta go-aan qadhaadh oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la qoobay, kaasoo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda somalilan iyo ammaanka qaranka. umaan tanaasulin muuse biixi, umaan tanaasulin kulmiye. waxaan u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda somalilan. waxaan go-aansaday inaan natiijada gacan ku samayska ah ee la dhowrdoobay aan aqbalo. sidii hore u yidhi madaxweyne daahir yaale, gacantayda somalilan ku burburi mayso. aniguna waxaan leeyahay dalkayga dabacayga u burburin maayo, dadkaygana dhiigooda u daadin maayo. waxaase ka baqaya inay gacanta kulmiye ku burburto. walaalayaal waxaan rubaa inay rumoobi doonto rajada shacabka ee halganka kala duwan waktiga dheer loo soo maray. walaalayaal, inagoo ogsoon kulmiyey dadkii qaybiyey iyo duruufaha badan ee qalafsan ee aan soo sheegay, waxaan mar labaad kula dardaarmaya shacbiga somalilan isku duubnaada dadkaygow oo adkaysta waayaha adag ee aynu galay. waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga wadani meel kastoo joogaan inaanay u dheganuglaanin xaalad abuurka xisbiga kulmiye ka wado dhammaan deegaanada jamhuuriyadda somalilan. waxaan ugu baaqayaa inaynu ka fogaano banaanbax iyo iskiroomaad ciidamada. madaxweynaha cusub wuxuu la kowsaday oo isle wuxuu ku faraxashay dhiig. waxaa laga sheegaya hadda in xabadi duca ka socoto, dad dhintay iyo dad dhaawacina ay jiraan. waxaan ugu baaqayaa in la badbaadiyo dhiigga shacbiga somalilan ee waxba garabsan. somaliland ha guulaysato, somaliland ha guulaysato, xisbiga wadani ha guulaysato. insha allahu waxaynu badbaadinaynaa